Filimku wuxuu ku bilaabanayaa gudaha waddanka Spain iyadoo dadku isla dhacayaan Nyayo, taasoo ah dabaaldeg sanadle ah oo la yiraahdo Latina. Kadib waxaan arkaynaa wakiilka MI6 Nool oo joogta xafladda, iyo kooxdeeda oo ku jira howlgal qarsoon, iyagoo dusha kala socda dhaqdhaqaaqa meesha. Waxayna ku raad joogaan burcad Russian ah oo lagu magacaabo Victor. Isla markiiba waxay ogaadaan inay ku jiraan dabin, waxayna isku dayaan inay howlgeliyaan nidaamka Echelon, balse way ka soo dahaan. Isla markiiba waxaa soo weerara burcad, waxayna la wareegaan nidaamka. Nool waxay isku daydaa inay ka hortagto, balse waxaa si lama filaan u togta burcadda, halkaasoo ku dhacda. Kadib muuqaalku wuxuu wareegayaa gudaha London, halkaas oo aan ku aragno ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Sam oo ka walaacsan la kulanka madaxweynaha Mareykanka Will, kaasoo kaliya xilka haya muddo 6 bilood ah. Dadkuna ay jecel yihiin maadaama uu horey u ahaa jilaa caan ah oo filimada badan sameeyay. Soo gaaray waqtigii shirka, halkaas oo aan ku ogaanayno in madaxweynaha Mareykanka Will uu ku xanaaqsan yahay Sam maadaama uu ka taageeray musharaxii la tartamayay doorashada Mareykanka. Kadib Will wuxuu u sheegaa Sam inuu iska dhegatiro wariyaasha haddii ay weydiiyaan wax ku saabsan howlgalkii Spain. Laakiin Sam wuxuu u muuqdaa qof aan ku qanacsanayn hadalkaas, isagoona oggolaansho siinaya mid ka mid ah wariyaasha, kaas oo madaxweynaha weydiiya howlgalkii fashilmay ee Spain. Kadib Will wuxuu isku dhaafiyaa in si dhaqso ah loo soo qaban doono dadkii ka dambeeyay, si loo muujiyo isfaham wanaagsan oo labada mas'uul ah. Waxaa loo soo jeediyaa inay wada raacaan diyaaradda Air Force One. Kadib mid ka mid ah burcadda ayaa iska soo dhigay shaqaalaha diyaaradda, wuxuuna weeraraa kooxda diyaaradda. Iyadoo diyaaradda cadowgu hawada kusii sugaysay, waxay kusoo weerartaa gantaalo, laakiin difaaca diyaaradda Air Force One ayaa ka hortaga badanaa gantaalada, balse mid ka mid ah baa ku dhaca mashiinka diyaaradda, halka burcaddu kusoo ridaan gantaal kale, kaas oo dalool weyn oo ay ka neefsato diyaaradda u fura. Balse Sam iyo Will waxay ku dhegan yihiin meel ka mid ah diyaaradda. Duuliye wuxuu isku dayaa inuu xakameeyo diyaaradda, balse mashiinka kale ee diyaaradda baa loogu daraa. Burcadkuna wuxuu ka boodaa diyaaradda, halka labadii mas'uul xaaladdu ku cakarmatay, waxayna ku khasbanaadaan inay baarashuut kaga boodaan diyaaradda. Sam ay u fududaatay soo degitaankiisa. Will waxaa ku adkaatay inuu soo dego, waxaana ku dhegay geed. Dhanka kale, shilka diyaaradda Air Force One baa haysta warbaahinta, iyadoo loo maleynayo in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ku dhinteen shilka, halkaas oo ku-xigeenka madaxweynaha Mareykanka Elizabeth ay la wareegtay xilka. Dhanka duurka Belarus, Sam wuxuu u yimaadaa Will oo weli ku dhiman sidii uu soo degi lahaa, halka Will uu la soo baxay moobilkiisa si uu u waco xaaskiisa, balse Sam baa kabtiisa kaga jabiya, wuxuuna u sheegaa inay burcad kusoo tixraaci karaan, waxayna sii wataan socodkooda. Dhanka kale, nidaamka Echelon baa loo keenaa Elizabeth, halka kooxda Victor ay isku dayayaan inay jabsadaan nidaamka Echelon, oo ah nidaam basaas oo ay leeyihiin wadamada Mareykanka, Kanada, Ingiriiska, Australia iyo New Zealand oo la isku yiraahdo isbahaysiga shanta indhood. Dhanka gudaha keynta, Sam iyo Will waxay meel ka arkaan guri ku yaala duurka, waxayna bilaabaan inay u yimaadaan si caawimaad u weydiistaan, balse kooxdii guriga joogtay waxay ku bilaabaan weerar. Halkaasna waxaa ka bilowda dagaal adag oo gacmaha la iskula tagay. Iyadoo marxaladaas lagu jiro, waxaa soo baxda haweeneydii guriga lahayd oo qori sidata. Waxay weydiistaan caawimaad wayna ka aqbashaa, waxayna ku kaxisaa gaarigeeda oo ido ka buuxaan, iyadoo u wada Warsaw, caasimadda Poland. Markii ay gaareen xuduudda, Sam iyo Will waxay isku qariyaan idaha, iyadoo waardiyu u dhow yahay inuu arko. Waxaa mashquulisa haweeneyda, waxayna hadiyad ahaan u siisaa neef ido ah. Kadib waxay soo gaareen Warsaw, isagoo u mahadcelinaya wuxuu bilaabaa inuu siiyo saacadiisa qaaliga ah, balse haweeneydu waxay iyada oo la cadaynaysa ugu jawaabtaa maya, waa mahadsantahay mudane madaxweyne, taas oo ay la yaabaan. Kadib waxay gaaraan guriga qarsoon ee amniga ah, wayna ku farxaan in madaxdu weli nooshahay, halka Victorna uu ogaanayo inay weli nool yihiin. Kadib wakiilku wuxuu u sheegaa in burburkii diyaaradda kadib ay kumanaan kun oo feelal sir ah la soo faagay oo ay lahaayeen isbahaysiga gaashaanbuurta NATO, wuuna ku dhow yahay inuu burburo. Waxaa meesha soo gaara kooxdii Victor oo weerar ku soo qaada, halka Sam iyo Will ay u diyaar garoobayaan dagaal adag inay wajahaan. Waxaana bilaabata is-rasaaseynta, kadibna waxay raacaan wiishka, balse waxaa bannaanka ku sugaya 2 nin oo ka mid ah burcadda Victor. Isla markiiba waxaa lagu dhuftaa gaari, balse waxaa la yaab ku noqota inay tahay Nool oo ka badbaaday howlgalkii Spain. Waxayna u sheegtaa in badbaadadoodu ay muhiim u tahay badbaadada caalamka, waxayna isweydiiyaan cidda dhexdooda ku jirta ee la shaqeynaysa burcadda. Kadib waxay fuulaan tareenka. Kadib waxaa u yimaada Arthur oo qori ku haya mid ka mid ah burcadda, balse wuu maareeyaa inuu dilo burcadka. Kadib kooxdu waxay soo kaxayaan Arthur oo dhaawacan. Intaanu dhiman wuxuu u sheegaa furaha kombuyuutarkiisa, wuxuuna u sheegaa in tuhmanu halkaas uu ku jiro, kadibna halkaas buu ku dhintaa.
kadib waxay bilaabeen inay ka boodaan tareenka oo socda inta aanu gaarin busteejada oo cadowgu ku sugayo. Markay yimaadeen halkii uu yaalay kombuyuutarkii Arthur, waxaa ku sii sugayay raggii Victor, waxaana u suuroway inay helaan kombuyuutarkii. Waxayna ogaadeen in qofkii ugu dambeeyay ee la xiriira burcadda uu yahay Simon. Kadib waxaa timaadday helicopter, waxayna bilowday inay jiido qolkii yaraa ay ku jireen Noel iyo Will, balse waxaa ka hor yimid Sam oo jara xarigga. Kadib diyaaraddu waxay gantaal ku soo riday qolkii uu ku jiray Sam, halkaasna uu qarax weyn ka dhashay. Will iyo Noel waxay u muuqdaan kuwo niyad jabsan maadaama uu dhintay saaxiibkood Sam. Markii la gaaray aroortii, Will wuxuu la xiriiray Elizabeth, wuxuuna ka codsaday inay gaari u soo dirto, wuxuuna ugu daraa in Simon uu yahay qofka ku dhex jira. Markii ay soo fulaan gaarigii u soo dirtay Elizabeth, waxay garwaaqsadaan in Elizabeth ay ka dambeyso wax walba. Halkaasna waxay isku dagaalaan raggii Elizabeth, halka gaari kale uu ku soo ridayo rasaas.